halkani waa Somali Radio warbaahin dhexdhexaad ah oo idiin soo tabinaysa wararka iyo dhacdooyinka geeska Afrika Muqdisho Hargeysa Djibouti Jigjiga iyo Garissa somali.radio.net tani markuu kacdoonka ka bilowday dalka Suuriya 5 bilood ka hor ayaa waxa sii xumaanaya xiriirka u dhaxeeya Suuriya iyo Turkiga waxay si isdaba joog ah u codsanayaan in si dhaqso ah ay xukuumadda Dimashq u joojiso awoodda xad-dhaafka ah ee ay u isticmaalayso shacabkeeda madaxweynaha dalka Turkiga Abdullah Gül ayaa maanta sheegay inay luntay gabi ahaanba kalsoonidii ay dawladdiisu ku qabtay xukuumadda Suuriya waxa uu sheegay in Turkigu ay garab taagan yihiin had iyo jeer ale shacabka reer Suuriya ayna wanaagsan tahay in nidaamka Suuriya uu fuliyo dalabaadka shacabka inta aan xaaladdu faraha ka bixin Mr. Gül ayaa sheegay in caalamka maanta la joogo laga gudbay nidaamka ku dhisan kaligitalisnimo iyo hal xisbi ama hal shakhsi inuu daldan u taliyo madaxweynaha Turkiga waxa uu tilmaamay in haatan xaaladda Suuriya ay gaartay meel halis ah isla markaana aysan waxba tareenin ballanqaadyada isbedelka xukuumadda Suuriya ee ay ballanqaadayso hadalkan kulul ee ka soo yeeray Abdullah Gül oo ah madaxweynaha dalka Turkiga ayaa imaanaya xilli wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta ay kulan degdeg ah ku yeesheen magaalada Qaahira ee dalka Masar oo ay soo saareen qorshe xal looga gaarayo Suuriya kaasoo ay ku gacan saartay xukuumadda Dimashq waxa kacdoonka ka socda Suuriya uu ka sii daraya kadib markii ciidamada ammaanku weerar ay ku qaadeen qaar ka mid ah masaajidada ku yaala caasimadda Dimashq taasoo sii siyaadisay carada dadka Sunniyiinta ah oo iyagu ah aqlabiyadda dadka wadanka Suuriya Grand Royal Hotel Nairobi waa hotelka ugu casrisan Islii ku raaxayso Grand Royal Hotel Somali Radio wuxuu idin soo gudbinayaa warar ciyaaro barnaamijyo iyo dhacdooyinka Soomaaliya iyo Soomaalida London Minneapolis Stockholm Dubai Nairobi la socod saacad walba Somali Radio